Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkaad nagala socotaan waa Ibdaac Show. Kanaalkan Ibdaac Show waa kanaal cusub oo aan furnay dhowaan. Waxaan ku soo gudbin doonaa taariikhda dadkii saamaynta ku lahaa muslimiinta dhexdooda, masaa'il diini ah, kutub la soo koobay oo wax yar oo daqiiqada lagu soo koobi doono, wararka markaa taagan ee saamaynta leh, qaab ka duwan qaabka inta badan warbaahintu ay uga hadlaan, iyo waxyaalo kale oo ku anfaca. Haddaba walaal nagu soo biir siina faafi kanaalka haddaad awoodid. Maanta halkan waxaanu ka bilaabi doonaa silsiladan ugu magac daray silsilatu siyaril usuud. Libaaxa koobaad ee maanta aynu soo qaadan doono waa nin magaciisa markii la sheego ka kaaftoonba in la tacriifiyo. Waa nin ka mid ah afarta madhab ee ugu waaweyn madaahibta la yaqaano, asaasiyaashoodii mid ka mid ah. Waa nin ka mid ah qoyskii Nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam. Waa nin abtirkiisa ay isku soo dhacaan Nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam isku abtirna yihiin. Waa Abu Cabdullaahi Maxamed ibnu Idriis ibnu Alcabaas ibnu Shaafic ibnu Saa'ib ibnu Cubayd ibnu Cabdiyaziid ibnu Haashim ibnu Almutalib ibnu Cabdimunaaf. Wuxuu ku dhashay dhulka barakaysan ee Gaza sanadku markuu ahaa 150 hijriga oo ku beegan 767. Aabihii wuxuu dhintay isagoo yar, waxaana soo korsatay hooyadii. 2 sano markuu gaadhay hooyadii waxay la aaday dhulka Maka. wuxuuna quraanka xifdiyay isagoo jira 7 sano Maka ku xifdiyay. Sidoo kale wuxuu xifdiyay Muwatta Imaam Maalik oo ahaa markaas kitaabtii qornayd ee taalay kuwoodii ugu horeeyay ama ugu waaweynaa ka mid ahaa. Imaam Shaafici da'diisu markay kor u dhaaftay 10 sano wuxuu aaday baadiyaha qolada la yiraahdo reer Hudayl oo qoladii Carbeed ee ahayd kuwooda ugu fasaxa badnaa Carabta. luqadii fasaxayda Carabiga ku hadli jirtay si uu uga soo bartay af Carabiga fasaxaha, halkaana uu kadib ugu soo noqdo Maka. Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi markuu gaadhay da'da 15 asagoo jooga magaalada Maka, muftigii Maka xilligaas Muslim ibn Khalid az-Zanji wuxuu u fasaxay fatwada una ogolaaday inuu fatwoodo. Wuxuu weliba kula taliyay inuu fatwoodo uu sheegay inuu ahal u yahay. waxaa xilligaas faafay magaciisu Imaam Maalik calayhi raxmatullaah. Kadib Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi wuxuu go'aansaday ninkaas magaciisu saas u faafay cilmiga inta dhan lagu sheegay si uu la soo kulmo cilmigiisana uga soo barto. Halkaas ayuu kula kulmay Imaam Maalik calayhi raxmatullaahi magaalada Madiina kula kulmay, cilmigiisana uu kaga soo bartay Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi Imaam Maalik oo ahaa sheekhiisi. Markuu ka soo qaatay Imaam Maalik cilmigii reer Madiina iyo reer Maka oo la isku yiraahdo Xijaaz, uuna ka soo bartay xadiidka Nabiga calayhi salaatu wassalaam, wuxuu go'aansaday inuuna intaa ku kaaftoomin. hase yeeshee xagee wax kale ka jira. Wuxuu go'aansaday cilmi ka mid ah cilmiyadii markaa jiray kuwooda ugu waaweynaa oo ahaa fiqigii Xanafiyada oo ahaa madhabkii ugu weynaa inuu soo barto. Xageese ugu dhow? Waxaa ugu dhow magaalada Baghdad oo ku taala Ciraaq. 184 ayuu Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi u safray Baghdad si uu madhabkii Xanafiyada ee markaa jiray u soo barto, oo sheekhoodii markaa uu ahaa Maxamed ibn Xasan al-Shaybani oo ahaa ardaygii Abu Xaniifa. Halkaas ayuuna kula kulmay Maxamed ibn Xasan al-Shaybani. Khilaafada markaa waxaa haystay imaamkii Haaruun ar-Rashiid. Haaruun ar-Rashiid waxaa loo sheegay inuu soo galay Shaafici magaalada, uuna joogo Shaafici magaalada. Sidoo kale Shaafici inuu rabo in asaga lagu wareejiyay khilaafada, isaguna uu khaliif noqdo maadaama abtirkii Nabiga calayhi salaatu wassalaam uu kaga soo dhaco meel uga dhow Haaruun ar-Rashiid meeshuu kaga soo dhaco. waa la soo xidhay Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi, waxaana loo keenay Haaruun ar-Rashiid. Haaruun ugu qoraystay Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi su'aalo badan oo uu weydiiyey. Kadib Imaam Shaaficina uu sheegay inaanu Haaruun khilaafadiisa rabin, kursigiisana u soconin, weligiina waxba urka ugu qabanin. waa la fasaxay Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi asagoo weliba la karaameeyey, lacag badanna loo amray, guryo in loo dhisana uu Haaruun ar-Rashiid amar ku bixiyey. waxaa markaan u suurta gashay Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi inuu kulmiyo cilmiyadii markaa jiray, midkii xadiidka iyo midkii fiqigaba oo asxaab ra'yi markaas loo yaqaanay. wuxuu kulmiyey cilmigii reer Xijaaz oo Maka iyo Madiina ugu waaweyn yihiin, iyo cilmigii reer Ciraaq oo magaalada Baghdad looga arriminayay. kadib Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi wuxuu ku laabtay magaalada Maka si uu la kulmo hooyadii oo halkaas deganayd. halkaan ayuu markaa sheekh ka noqday, kitaabtana ka akhriyay, kula kulmay culimadii Maka markaa joogtay, waxna u akhriyay waxna ka akhristay, la kulmay dadkii xajka imaanayay. waxaa ka mid ah dadkii uu la kulmay Imaamu Axmed ibnu Xambal iyo culimadii kale markaa xajka imaanaysay dhammaantoodba.
sanadkii 195 Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi wuxuu ku laabtay magaalada Baghdad markaan isagoo leh madhab gaar oo isaga u madax bannaan oo aan ahayn madhabkii markaa jiray Xanafiyada iyo madaahibtii kale markaa la daadaheeda markaa jirtay isagoo kala soo dhaxbaxay fiqigii uu ka soo qaatay madhabka Xanafiyada iyo xadiidkii uu ka soo qaatay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidtiisa oo Makiya Madiina uu ka soo bartay Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi wuxuu qoray markii ugu horeysay kitaabkii ugu horeeyay oo laga qoray cilmiga usuul fiqiga waana kitaabkiisa caamka la yiraahdo Ar-Risaala waqtigu markuu ku beegan yahay 199 Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi wuxuu u guuray dhanka Masar kadib markuu khilaafada qabsaday ninkii la dhihi jiray Cabdullaahi ibn al-Ma'muun oo ahaa ninkii dhulka u goglay gacmaha muctaziladii xilliga joogtay wadanka Islaamka ama Ciraaq xirxirayna culimadii muslimiinta ee sunniga ahayd markaas joogtay qaarna laayayba Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi wuxuu dhalay 4 ilmood 3 xaaskiisa u dhashay iyo mid ay u dhashay adoontiisii 2 wiil iyo 2 gabdhood oo Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi dhalay sanadkii 204 ayuu Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi naftiisa u dhibay Rabbigii subxaanahu wa ta'aala isagoo jira 54 sano kadib dagaal dheer oo ku soo bixiyay u gargaaridda kitaabka Ilaahay barid iyo barasho iyo ku dhaqan intaba halkaas ayuu Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi lagu xawaalay dhulka Masar ayuu Imaam Shaafici calayhi raxmatullaahi ku aasan yahay maanta halkaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa berrina waxaanu ugu xigi doonaa insha Allah libaax ka mid ah libaaxyada muslimiinta oo taariikhdiisa aanu soo koobi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.